Xogayaha guud ee xisbiga Jubilee Jeremiah Kioni ayaa sheegay inay taageerayaan isku soo baxyada dadweynaha uu ku dhawaaqay madaxa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Waxa uu xusay in kulamadan oo si nabad ah loo qaban doono lagu doonayo in laga soo horjeesto tallaabo uu madaxweynaha dalka William Ruto si ku meel gaar ah shaqada ugu istaajiyay 4 sargaal oo ka tirsan IEBC. Howlwadeennada oo laba ka mid ah is-casilin ayaa lagu dhaliilay in bishii 8 ee sanadkan ay ku gacan saareen natiijadii doorashadii guud saacada ka hor inta uusan si rasmi ah u shaacinin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati. Xogayaha guud ee Jubilee ayaa intaasi ku daray in isku imaadka dadweynaha ee bari lagu qabanayo fagaaraha Kamukunji ee ismaamulka Nairobi iyo mid kale oo 12 bishan ka qabsoomi doona fagaaraha Jacaranda Gardens ee Embakasi ay yihiin kuwo lagu xoojinayo maamul wanaaga. Kioni ayaa carabka ku adkeeyay in xisbiga Jubilee uu maalmaha nagu soo aadan soo saari doono bayaan dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda dalka. Waxa uu caddeeyay inay ka warbixin doonaan arrimaha garsoorka, dhaqaalaha, guddiga doorashooyinka ee IEBC, isbedelada dastuurka ee loo baahan yahay iyo amniga.